وانا تقرأ الشيء الله سبحانه وتعالى يقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله وامك ملك السماء أبورتي إسكاله إنت أرحي السماء عابد الله عبادة سنة الصبر فاعبده واصطبر لعبادته عبادة سنة الصبر صلاة الصبر ويسجد الصبر سكدي بحنتي وحولي صدقتي الصبر صوتي الصبر حجتي الصبر دعوتي الصبر دينتي وقوتي الصبر إلهي سبحانه وتعالى عبادتي الصبر يأتيس إياه. محمد عبدي أومل ayaa qaliin ku galay magaaladaasi New Delhi ee dalkaasi Hindiya. Qaliinkan ayaa la sheegay inuu shib umal ka maray dhanka dhabarka, iyadoo wararka la sheegayaan inuu ka maray dhanka kilida oo dhibaatooyin badan kala kulmayay sanadihii u dambeeyay. Ma ahan markii horeysay uu qaliin ku galo dalkaasi Hindiya. Sheekh Maxamed Cabdi Umal 2016 bilowgeedii ayuu ku galay qaliin dalkaasi Hindiya, gaar ahaan magaalada Hyderabad ee caasimadda gobolkaasi Telangana, iyadoona xilligaasi laga qalay qaliin looga suubiyay dhanka kilida. Sheekha ayaa waxaa cadeeyay ama xaqiijiyay qaliinkiisa dad badan oo Soomaaliyeed ah, gaar ahaan caalimka weyn ee lagu magacaabo Sheekh Maxamed Idriis oo ku sugan dalkaasi Turkiga. Sheekh Maxamed Idriis ayaa sheegay inuu daqiiqado ka hor la hadlay Sheekh Umal oo sabtidii qaliin ku galay dalkaasi Hindiya magaalada New Delhi. sheekhu cisbitaalka uu ka soo baxay wuuna fiican yahay alxamdulillah, ha loo duceeyo sheekha in ilaahay caafiyo isaga iyo ehelkiisa nabad ku soo celiyo, nafaciisuna ummadda uu sii dheereeyo. aamiin 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 ayuu yiri Sheekh Maxamed Idriis. fadlan la dhaafin ducada sheekha caalimka weyn alwaalid Maxamed Cabdi Umal ee lagu qalay dalkaasi Hindiya. wadaadkan ayaa ah wadaadada ugu caansan Soomaalida, sidoo kalena ah wadaadada inta badan laga qaato fadwooyinka diinta islaamka, gaar ahaan kuwa masiiriga ee Soomaalida dhexdeeda. fadlan ha ka gudbin muuqaalkan adigoona u duceyn Sheekh Maxamed Cabdi Umal. kani waa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo sabtidii qaliin ku galay dalkaasi Hindiya. sheekhu cisbitaalku ka soo baxay wuuna fiican yahay haatan. warar iskhilaafan ayaana ka soo baxaya meesha qaliinka looga suubiyay inay tahay kilida iyo inay tahay dhabarka. sheekha ma aha markii horeysay uu qaliin uu galo, horay ayaa sidaan usoo sheegnay wuxuu galay 2016 February qaliin dhanka kilida ah, iyadoona markaasi lagu guuleystay qaliinkaasi. haatanna la sheegay qaliinka uu galay inuu ahaa qaliin aad u fudud. ha ka gudbin muuqaalkan walaal, sii faafi si ay ugu duceeyaan ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa cilmiga gaarsiiyay iyo kuwa cilmiga gaarsiin doonaba. Sheekh Maxamed Cabdi Umal waa Maxamed Alfa. salaamullaahi calaykum.